laba tukiya idaho walaala laysku soo diraya laba tablogo sanadii dhammaadkii waqtiga la dagii waxay tahay su'aashii kolba laba tukiya idaho walaala laysku soo diraya laba tablogo sanadii dhammaadkii waqtiga la dagii waanu ka xunahay dili iyo dhigdiinaba ninkii way dhammaatee dawaarifa naga gada jahaloo yiraahda wasigaa ujeedadu afkiisay tiraadaba تعبان حولمينهاي ليراد الحلقي ثم جيت مدكهاي أفرسن يوسفون الناس ثماني أيتيان عانه أيتي سميان Make sure that we stand together for justice and we speak out against injustice. Shame, shame USA! Shame, shame USA! Shame, shame USA! Shame, shame USA! Brothers and sisters, we are here to speak with loud voice to say the action of the US and Ethiopians are crime against the humanity of the people of Somalia, Afghanistan, Iraq and Palestine. Yes! Let's focus on Somalia now. Yes! Our brothers and sisters in this land, in Canada, have been subject to so much discrimination and racism. So we need to speak out against war and we need to speak out against Islamophobia, against racial profiling and against discrimination. Yes! And we need to build our support base. We need to support the coalition for Somali group that called for this rally today. Yes! Please dig out, support them, and please when there are action to support the Iraqis, the Afghanis, the Palestinians, turn out and let's do it together. Thank you very much. The people united will never be defeated. 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 United will never be defeated. Chris Markway, the part of here on behalf of the organization, No One is Illegal. Hey,
I'm Christopher Magwai. I'm here with No One's Legal. We're a group of immigrants, refugees, trade unionists, students, and allies fighting for immigrant policies that are racist and elitist here in Canada. But moreover, I'm a U.S. war resistor. I came here in March, deserted the U.S. Marine Corps after finding out the war in Iraq was illegal and immoral. War resistors, welcome here! 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 Both wars have a proven record of systematic abuses of human rights and violations of international law throughout the entire deployment. I served in the Marine for 3 years and I swore to fight and die for the Constitution of the United States of America. What my Marines and my soldiers were doing was not defending the Constitution of the United States of America. It was spreading the influence of the United States and spreading corporate desires across the globe in order to make America a stronger economy than it is now, just to exploit other countries. It's the only reason the U.S. sent airstrikes to support the Ethiopian occupation of Somalia right now, is to support and spread out the influence of America. Canada and U.S. need to do the right thing. They need to step up to the plate, stop military intervention and do the right thing. Open their borders and let refugees flee from the bloodshed that they have caused with their military intervention and let them come to Canada as refugees and stay here. Resisting war is no crime. Welcome to Canada anytime. War resistors, welcome here. War resistors, welcome here. War resistors, welcome here. War resistors, welcome here. Okay, now we have a sister from Ethiopia who is also against about the illegal occupation aggression by the Ethiopian troops in Somalia. Well, this is my first public speech, but I would like to say that the majority of Ethiopian people does not support this war. It's just a malice. The whole Africa needs peace. We do not need war. We need equal opportunity, freedom, and justice. The Africa continent as a whole has been suffering, and this is not the way that the majority of the future African generation and the young and the women would like to see a peaceful Africa, where everyone had equal opportunity and is not killed either for ethnicity or for religious reason. Because in Ethiopia, Muslim and Christian in Somalia, every culture we live peacefully in harmony, and we have existed for many thousand years. And what we want now is the next generation of our Africans, our children and our women, and no more refugees, no more killing, no more genocide. We need freedom and equality. That's what I would like to say. And I would like to say the Ethiopian people do not want war. The Meles government is not a democratic government. He's a warlord. This government has imprisoned democratically elected people. In May 15, 2005, the majority of Ethiopian people voted out Meles. But he's backed by the US and he's sitting and he has imprisoned democratically elected people. And he does not represent the voice of the Ethiopian people. We want Meles out as much as you guys want him out. Yes, out of Africa, Meles. Once again, I would like to say we as Somalians want our country, our freedom, our life, and liberty, so that we can live together and work together as brothers, sisters, and Muslims in harmony, practicing our faith without any war. We want the U.S. out of our country and the Ethiopians out of our country. We'd like to thank everybody for coming out in this cold weather today. Once again, we would like to sing the national anthem of Somalia. Somalia tosa no acaba.
Troops out now! End the occupation! Troops out now! Let's try to make the connection out to some of the other struggles we've been fighting on. Out of Afghanistan! Out of Iraq! Out of Somalia! Bring the troops back! Out of Afghanistan! Out of Iraq! Out of Somalia! Bring the troops back! Out of Afghanistan! Out of Iraq! Out of Somalia! Bring the troops back! Out of Afghanistan! Out of Iraq! Out of Somalia! Bring the troops back! I'm sure everybody knows this one. George Bush, we know you. Daddy was a killer too. George Bush, we know you. Daddy was a killer too. It's only like bonfire in horn of a brick. That's what we're against. We don't want to burn the continent and the region. But Somalians have enough power and spirit to defend their people. Say something. I want the voices to be raised in egoistic mentality of silence, where the innocent children and women become the great victims of the political innuendos who control what and where and Rwanda. I want so many things that all I
فيها صومالي عنواتو صومالي عنواتو صومالي عنواتو صومالي عنواتو كوينة دمبك عمين كرنو قاريات صومالي عنواتو صومالي عنواتو waxaan meesha idinkugu yimid maanta inaan dadkeena aan supportiga annaga waxa aan maaragtay u stand gareyna as a people ay ugu xiran tahay dadka Mareykankana mana rabaan inay maqlaan waxa meesha aan iskugu nimid maanta runta aniga haddaan rabo inay America ay maqasho newska American la hadlaa haddaan rabo Canada inay maqasho newskan la hadlaa alxamdulillah chance aan haystaa maybe fursad dadka badan oo Soomaalida ay haysan haystaa maasha Allah so waa ku isticmaalaa marka chance lana waa ku hadlaa laakiin waxa aan maanta meesha u imid inaan adinka idin la hadlo dadka Soomaalida inaan la hadlo dadka kale ha noo dambeeyaan dagaal maanta waa jira Soomaaliya dib badan ka jira Ethiopia oo dagaal badan Soomaaliya ay isla soo mareen dad annaga naga mid ah oo Soomaalideena invite gareeyay oo yiri kaalaya Mareykankii dadkii aan annaga invite gareynay oo ahaa ayaga marka hore groups oo illegitimate ah government oo annaga dooran oo dadka miskiinta Soomaalida dooran oo warlords intay isku yimaadeen ee America intay u aadeen ay yiraahdeen muslimiina meeshaan degan kaaladaaya dhibaatadaas maanta maxay ka timid maanta waxay ka timid dhibaatadaas annaga haddaan ka dhagaysanin wallahi billahi oo guriga neighborkaada aysan ka dhagaysanin maanta meeshaan ma iskugu imaan lahayn marka danaysnimada la iska daayo Soomaaliya danaysnimada la iska daayo dantaada waa diintaada iyo dadkaaga ma aha qabiilkaaga marka taasoo haddaan hore u soo dhaafo dhibaatada maanta aan meeshaan iskugu nimid markii annaga aan dhinac dhigno waxa waaye maanta in foreign army ay waddanka soo galeen ay soo invade gareeyeen there is certain things oo adinka I hope most of you inaa og tihiin marka hore horta there is no way ay legitimate u tahay dadkaas inay waddankeena soo galaan no matter what Somali group invite gareeya ma geli karaan for the simple fact gaaladii hadday dhaheen rules aan leenahay regulations aan leenahay hadday annaga aan ka rumaysano oy dhahaan democracy aan leenahay waxay dhaheen waxaa jirta United Nations resolution wax la dhaho United Nationska although ayaga xataa ay iska yihiin dad maaragtay dhibaatada iska haysato oo laga quwad weyn yahay runtii United Nations dad isku yimid waaye powerka ay haystaan dowladda US ka qaataan lacagta ay haystaan US ka qaataan so marka ay hadlayaan ayaga dantooda kaliya kuma hadli karaan so United Nations Security Councilka ayagoo raba inay dhahaan Soomaaliya waxa lagu sameynaa waa qalad waa dhihi waayeen ma dhihi karaan marka voice-na yeelana waay marka dadkeena Soomaalida waxa ay ayaga concern-kooda yahay waa inay bartaan the laws oo ay leeyihiin international community ay ku dhaqaan so haddeertaan resolution jira oo la yiraahdo borderka xataa hadday dan ku yihiin xataa hadday Ethiopia ay maanta leeyihiin Soomaaliya dan aan u wadnaa oo waana la invite gareeyay oo dowladdan legitimacy aan rabnaa inaan siino oo waxaan rabnaa Islamist iyo al-Qaeda inaan bixinaan rabnaa hadday xataa dhahayaan oo dan aan wadnaa ma samayn karaan border ku dhagan waxay dhaheen United Nations since danta oo ka dhaxin karta ay tahay dadkaas economic ma caawini karo ma ku duuli karo armigiisana ma goyn karo borderka absolutely resolution kaas oo wax jira 1725 way ignore gareeyeen way galeen maxaa soo haray United States in ay fire power kooda ay isticmaalaan
ay dad maskiimiina oo kismaayo iyo dhinacaas degan ay laayaan xoolihii ay ka laayaan subxaan allah okay ayaga taas illegal ay tahay laakiin United States powerka ku xiga maanta oo second most major power waxa waaye European Union haddii xataa European Unionka uusan United States la jirin inkastoo isku dad yihiin ay isla jiraan United States 40 times more firepower ay haysataa than the European Union ayagii 40 times kasii xoog weyn waana la jiraan kuwii ku xigay marka powerkaas inta xabad qaadato maanta ama aad dadkii waa dhinteen nagala soo bax dhibkii waa bateen nagala soo bax dhiiggii waa qurteen nagala soo bax dhulkii waa gurteen nagala soo bax nagala soo bax nagala soo bax dadkii waa dhinteen nagala soo bax dhibkii waa bateen nagala soo bax dhiiggii waa qurteen nagala soo bax dhulkii waa gurteen nagala soo bax Soomaali ha noolaad